Ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa fuliyay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa howlgalkooda ka fuliyay deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Intii uu socday howlgalka, ciidamada ayaa waxay sheegeen in markaasi 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka Mubarak, iyadoo isla markaana ciidamadu ay sheegeen in 4 xubnood ay aasayeen miinooyin, iyagoo isla markaana ay ku aasayeen wadooyinka soo galay kuwa ka baxa deegaanka Mubarak. Ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed ayaa dhowaan si cad u sheegay inay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo isla markaana ciidamadu ay wadaan dadaal iyo sidoo kale dagaal ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliyeed ayaa mar waliba ku celceliyay la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo isla markaana ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed ay wadaan howlgallada ay kaga saarayaan qaybo ka mid ah gobollada dalka kooxda Al-Shabaab.